siyaasadda ka soo fuulay waxaan maqlahay nin la yiraahdo maxaa Cabdikariin oo sheeganayo wasiiru dawlaha wasaaradda amniga Jubbaland in uu yiri degmooyinkaas iyo degmooyinka gobolka Gedo amni ma waa shaqadii asaga uu lahaa inuu qabto haddii la qabtayna inuu ugu hambaliyay inta kale marka ninkaas asaga taariikh ahaan dadka Soomaaliyeed oo warkaas maqlahay inaysan aqoon u lahayn baa laga yaabaa ninkaas 2005 uu magaalo soo galay soo diirhara ka yimid ayuu wuxuu yimid magaalada Alwa isbaaro dhigtay isbaaradaas siyaasadda ku soo galay halkaas siyaasadda ka soo fuulay baabuurka siyaasadda ka soo fuulay ilaa hadda isbaarada ayada Alwa qoy taala khidmad baa looga diraa wiilasha baabuurta isbaarada ay ugu taala Alwa buu wacaa oo yiraahday waxayga maanta ma qaba baabuur ba soo martay waxayga maali soo dir wasiir dawla amni oo Jubbaland waa sheegan qof wuxuu ahaa macaarada hayo Soomaali hore u soo aragtay wasiir macaarada hayo xukuumadii asaga uu ka tirsanaa oo ridahay ama dawladdu uu ka tirsanaa ridahay Soomaali way soo aragtay hore u soo aragtay waayo shakhsiyaadkaas waxa lagu yaqaanaa oo lagu bartay qof ku feel garoobay ama ku fashilmay shaqadii ayada heedo loo idmaday ku fashilmay markuu qofka marka fashilmo waxa uu sameeynayaa inuu shaqadii socotay iyo wixii qabsoomayay iyo amnigii nidaamkina inuu fashiliyo hadda baar dheer u jooga wuxuu la joogaa ma garanaysaa amni darro kooxaha nabadiidka inuu la shaqeeyo inuu amni darro ka abuuro meeshaas ayada ma garanaysaa arintii ka dhacday baar dheer iyo maartay mudaharaadyadii qayb buu ka ahaa ma garanaysaa halkaas ayada ahana meel uu dhibaato ka sameeyay kaga shaqeeyay sidoo runtii qofkaas oo kale hadda Soomaaliya way bartay wayna fahansanta dadka intaan fahansanayna waxaan leeyahay shakhsi fashilan warkiisa inaan la dhageysanin gobolka annaka joogno har iyo hameen u taagan shaqo hoose iyo mid koraba ka hayno shabaab iyo kooxaha nabadiidka khawaarijtana goobaha ay joogaan iyo meel allaale meesha noogula sheego ayaan u raadsanaa oo ugu tagnaa ayadoon amisom nala soconin ciidamo kale shay nala soconin ay yihiin dhalinyarada muwaadiniinta oo gobolka iyo maaragtay Soomaali u dhalatay ay yihiin Jubbaland yaan ugu tagnaa goob kasta ay joogaan waana xaqiiqiyan waana laga warqabaa markii aan is aragno kooxahaas khawaarijta nabadiidka in annagu aan gacan adag ku saarno fashilinana fal kasta iyo fal dambiyeed kasta iyo maaragtay wax kasta oo guracan way u soo abaabulaan ummadda Soomaaliyeed dadka fashilay u taagan annagu naayma waa xaqiiqiyan hadda horumarba iyo howlgallo iyo maaragtay in horumar laga sameeyo kooxaha nabadiidka oo la burburiyo ayaa ka socdo iyo howlgalla waxa ka socdaan gobolka iyo guud ahaanba Jubbaland state ayay ka socdaan madaxdeeda tuuto u qabto annakiiba har iyo habeen u taagan dadna gobolkii u dhashay wasiir u sheeganahay waxay leeyihiin gobolkii intii amniga heed oo xaqiijiyay leh amni ma arintaas ayada marka arin foolxun weeye waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo reer Jubbaland qofka noocaas oo kala waxa uu astaahila ma lahayn in la yiraahdo meesha dhaaf isaga